gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo ku-xigeenka koowaad Mahad Cabdalle Caawud ayaa maanta kulan la qaatay gudoonka baarlamaanka ee dalkani Kenya Justin Mudhuru iyo xubno kamid ah baarlamaanka dalkani Kenya oo kamid ahaa shir gudoonka aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka Kenya Aadan Barre Ducaale. kulankan oo muddo saacadaha soconaya ayaa waxaa lagaga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay kamid ahaayeen iskaashiga baarlamaanada Soomaaliya iyo Kenya iyo sidii loo horumarin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed, ganacsi iyo isu socodka bulshooyinka wadamada Soomaaliya iyo Kenya. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa kulankan kadib warbaahinta qaranka uga warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen dhigiisa dalkani Kenya. si wanaag baan maanta u yeelan inaan la kulanno gudoomiyaha baarlamaanka Kenya iyo labada aqalba iyadoo dhawaan xildhibaano oo baarlamaankan ka tirsan ay booqasho ugu tageen dalka Soomaaliya Muqdisho siiba gaar ahaan baarlamaanka iyo xildhibaan ay la kulmeen. aniguna farxad weyn iyo fursad bay ii noqotay inaan isbaranno gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada ka socda labada aqalba. waa fursad bilaabatay, waa bilow wanaagsan oo aan rabno aan ku rajo weynahay in aan ku dhisno xiriirka iyo iskaashiga iyo aqoon isweydaarsiga labada baarlamaan. waa laba dal oo daris ah oo aan kala maarmin oo arrimo badan ka dhaxeeya iyo xilal badan ka saaran gobolkan aanu degannahay. labadeena dal ka sokow iyo muwaadiniinteena nabadgelyadooda ka sokow, haddana xil baa naga saaran gobolkan oo dhan oo geeska Afrika ah sidii aan uga shaqayn lahayn horumar dhaqaale iyo sugidda ammaanka gobolka laftirkiisa iyo deganaanshaha iyo xasiloonida siyaasadeed. marka waxay ii ahayd fursad wanaagsan, aad baan ugu faraxsanahay inaan helay fursadan fiican iyo kulanka aan la kulmay xildhibaanada oo ka tirsan labada aqalba oo dhawaanna ka yimid qaarkood ka yimid xamar oo soo arkay nolosheena sida ay ku jirto dhismaha dimuqraadiyadda hadda aan ku wadno ay nala wadaageen. arrimaha ugu muhiimsan waxa weeyaan iskaashiga oo iskaashiga mustaqbalka dhexmari doona labadeena gobol, labadeena dal baan leeyahay, labada baarlamaaneed iyo arrimaha ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya sida maaragta loo wanaajin lahaa iyo xiriirkayga iskaashiga xag dhaqaalaha noqoto, xag nabadgelyo, xag bulsho. waxyaabo badan baan wadaagnaa, Soomaali badan baa degan, qaxooti badan baa meesha naga jooga. arrimahaas oo dhan waa isla soo qaadnay iyo sidaan isu dhaafsan lahayn khibradaha labada baarlamaan ay leeyihiin. dhanka kale shir gudoonka aqlabiyadda baarlamaanka ee dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ka warbixiyay ahmiyadda ay leedahay iskaashiga dhexmara baarlamaanada Soomaaliya iyo Kenya. wala kulan fiican buu ahaa. waxaan noo imaaday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka Kenya iyo anigoo majority leader-ga baarlamaanka Kenya. waxaan ka hadalnay sidii labada baarlamaan ay isku shaqayn lahaayeen. baarlamaanka Kenya wax badan ay u qaban karaa baarlamaanka Soomaaliya xagga capacity building-ka inaan xarunna aan garab istaagno sifa dib u habeynta iyo dhisista wadanka Soomaaliya aan qayb kasta uga qaadano. baarlamaanka aan la dhisno, dawladda aan isla dhisno, maxkamadaha aan isla dhisno sifa saddexda qayb oo dawladda, maxkamadaha, baarlamaaniga iyo dawladda executive-ka saddexdaba aan ayagoo parallel ka socdaan aan u dhisno sifa baarlamaanka xoog ugu yeesho uu noqdo mid shacabka u shaqeeyo. baarlamaanka Soomaaliya wax badan ayaan u qaban karnaa xagga komitiyyaasha baarlamaanka Kenya, xagga labada speaker inay tababar shaqaalaha iyo xildhibaaniinta tababar loogu soo diro wadanka Kenya. marka faa'iido weyn bay tahay. buug cusub aan furnay oo la rabo inay baarlamaankan uu ka faa'iido kabacdina shacabka Soomaalida oo wadanka Soomaaliya u faa'iido. waxaana kulankan kadib wafdida uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari lagu soo wareejiyay aqalka baarlamaanka dalkani Kenya iyo xafiisyada ay ku shaqeeyaan madaxda sarsare ee baarlamaanka dalkani Kenya. Cabdiraxmaan Cumar Cabdi, Cabdiraxmaan Soomaali, warbaahinta qaranka, Nairobi, Kenya.